taasaan kaga baxaya waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacaygu waa Cabdiqaadir Sheebe waxaan ahay gudoomiyaha guddiga deegaanka iyo kheyraadka dabiiciga ee baarlamaanka dowladda Puntland su'aasha aan weydiinayo madaxweynaha waxaan soo arkay inuu magaalada Boosod baan ka yimid mashruuc dowladda Kuwait ay bixisay oo cisbitaal weyn looga dhisay magaalada Boosod oo mashruuca cidii qaadatay meesha lagu soo dajiyay oo 4 dabaq ahaa oo shaqadii istaagtay lama xamanayay anagoo xogaal kama ahayn la xamanayay in xogaal lacagtii ay hakatay loo xogaa musuqmaasuq dhacay madaxweynaha waxaan weydiinayaa bal wuxuu kala socdo hawshaas ana maasantay arinta ku saabsan Cabdiqaadir Sheebe oo ka hadlay mashruucaasi nin Kuwaiti ah oo la Naasir Marsuuq oo hadda ka hor loo yimid ayaa yiri waxaan dhisayaa isbitaalkaas annaga lama u soo marin dowladda lama soo xariirin nin shacab ah ayuu hawshiisa u wakiishay marka nin shakhsi ah waxa isagu shaqo uu yiri waa qabsanayaa ninna u soo wakiishay de waxa weeye annagu wax يعني فرقنا كلها إنما يسجلين دولتنا ما صومرين وزارة عافانا ما صومرين وحاول رين خيري هاي نبأنا يجوا وكيل أبوي مركا هدي وحي لو يعني لو شيء وحكي بدليه ده يسوي مركو ما لهم مركا حساب تماما لكن واحد نقدر صومر واحد شكور الناي بدنا ما ده كل شيء صراحة ومهم ويه أنه مركا نبي سياسة الدولة كاملة هاي دولة حقوقية هاي دوغامada ka fog laamiga